koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arhooy reer kalamaanow anayaa iiga warama wixii soo dhacay aniga waayahan waan xanuunsanaaye waan xanuunsanaaye warheesu saas ma ahayne waxay ahayd yaa ii warrama wadnahaygiyow inaan waayahaba walba haarsanay war lagu waran korna wax lagugu sheeg hoosna wax lagugu sheeg waa haddaad garanaysid qarahamiyanna la rabtaan miyaad juuq baa lehen afkiiba juuqda gabaye war qaraxii masaakiintii madaxda ku dhinteen af daboolan dahaba ku dhammaaday cambaareentii maa la waaye afkiibaa juuqda gabay warnimada waxaa la yidhi boqolaal jabhadoodoo jiirta aadmiga quutoo jahaad sheegta islaama juushkii talabiib iyo washingtonna la jaaloo kufri soo jiscimeenu horay bay u jireene waxay noo jilayeenoo dadkeennii ku jabsheen aakhirkeeda julaay markii jeemis iswaan oo injineerka la joogay ka soo hoobtay jirdiinka jugtii yeertay miyaa waxaa taa weli dheer madaxdii dalka joogtay midna caaskii ma joogin tacsidiina la jooji weli juuq kama hayno awood baan jirin xaggoodii afkood baa juuqda gabay war jabhadahaasaan ku soo xasuustay qolooyinka hadda maamul goboleedada la baxay jabhaday wada ahaa jiraan kulligood maandhooyow qoondadii dumarka ma la ogolaaday ayayo qoondadii dumarka xaaji muuse ka warayso warnimayow madaxweyne farmaajo ayaa qaraxi kadib waxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada waxaana xukuumadda u faray in jawaab degdega laga bixiyo qaraxii ay shabaab geysteen dadkii geystayna la soo qabto maandheeyow jawaab degdega ha laga bixiyo hadduu yidhi ma kuwa dhimana ha la dhammaystirow yidhi aboota haddaad dhagii beeshay awalna duqnimaan kugu ogayne xabbo kuma fahansii karno wardhaawacii gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow markii qadar loo qaada kabacdi war lagama heline yaa warka haya war arrintaad sheegaysid wasaaradda caafimaadka weydii war dhaawacyadii iyo qarixii dhacay guddigii loo xiil saaray aaway awood baan jirin xaggoodo afkood baa juuqda gabay war juuqdaada ma aqaane tush baan maqli jiray xalaal war waa maxay maciyaalka rideelayatiin warlan lama kiirinayo 20 lankadara shibnoodhe wal ka dhegansano wargeemka waxa u dhaxeeyo innaga ma ahane waa khayra iyo ahlu sunna war musallama ka caleeyeen war geemka PlayStation 2 miya war PlayStation kaada beele ciidamada ahlu sunna taabacsan ayaa maanta awood kula wareegay garoonka Dhuusamareeb xalayna waxaan maqlayay tush xalaal bay yiraahdeenoo ciidamadii tababarka loo diyaarinayay way kala baxeen marka khayra iyo ahlu sunna tush xalaal bay kala taagan tahay goraday usbeer mayleeray asal jawaan dhaayasa wallahi aan leeyelino billahi leeyelin ma tiishaliyana ku wadi haya wallahi aan ku wadayno billahi aan ku wadayno bartaani baan istaagayna yeerana ana filaday hortaba ra'iisul wasaare khayr markuu baxayay waa tuu sheegay inuu soo dhisay galmudug loo dhan yahay marka ha ka hor dhicine musalsalku intuu ka dhamaanayo suga maandheeskow adiga wax ma ogidhiine galmudug oo toosta oo isku duba dhacda waa Soomaaliya toostay war ma haysaane galmudug iyo Jubbaland waxa ku karsamaya wax bislaanaya ilma afkaada Allah ku celiyo aga awowgii la naar waxeenaga waa isku aadan yihiin ma hadad galmudugna la meel dhigi war Uhuru miyaa in soo booqdo warnimayow maalin dhaweyd golaha wasiirada Sayid Axmed Madoobe waatii ay sheegeen dawladda xiriirka u jareen wixii ka dambeeyayna odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayaa iyaguna dhahay tush maamulka Jubbaland waxayna dhaheen booskeeni rag kale baa la gashtay war waxba kama ogi Jubbaland xeer ilaaliyaha ciidamada maamulka Jubbaland maanta amar uu soo saaray waxaana ciidanka Jubbaland ku amray meelaha siyaasadda lagu karkarinayo inay safadhiisan war ciidanka Jubbaland ma waxa odaga dilay waa al-shabaab waxayna ku dileen saakow hadda waxa lagu eedeeyay hadda wax la yaabo dhagay faray la dhahay ayay ku eedeeyeen lugiisu ku soo
carooday may ku soo eedeeyeen war aadin waale hayadhaha sheeke aan garan waaye ayaa hargeysa layga soo sheegay bowdhankii la ogaayehe nin wariyaa la dhaho bakayle ayaa hargeysa lagu xiray ma waxaa loo soo dhigta maandheeyo bakaylihii duurka miya ayay waa kuu soo noqonaya dhegayso haddee ninkii la xiray waa ololeeyihii ugu weynaayey xisbiga kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi marka waxaan la yaabanahay maxaa loo xiray warkacaanku ka dheereeyey ninkii ka dheereeyena waa la xiraa ninkii ka gaabshana waa laga dabageeyaa warnimayahow somalilan iyo jabhadda korneyl caare weli waa ishayaan warniyo warkama ogi somalilanne korneyl caare iyo ciidamadii somalilan saaka sanaagay ku dagaaleen dhimashadii dhaawacana halkaas ka dhacay wareedhaha war ma haystaane waa iska murantaane madaxweyne farmaajo waa gabi wuxuu yidhi halkaan joogay anoon hananinoo toos u wada haysan habeenkiiyo dharaartana jabhadi ihuguryaynayso soo hargaysa hadalkaan la furay hagarla'aan ma maandheeyow waa u hambalaynayaa madaxweynaha hadduu hargeysa ka degay war duqdan waayeelnimadeeda awl ku dhibanaaye haddana ma dhegala'aana igu dartay war adigaa ka roonayne sanadkan muuse biixi waa soo xajina war hajka muuse biixi meelangelin diidi way wahe wadanka la eraw koonga way maylilinka diidayga saasana udurkii baktiga haayay abooladaha ayaa wedadaanga leeri ee hujaayad ay ka daaranee leeri udurjo war dadka oo xamari ayaa ka jooga ninkan warnimayo waxaan la yaabanahay maanta facebooka waxaa la wareejinayaa ilhaan cumar iyo saygeedii baa kala tegey marka waxaan is weydiiyey ma markii u horraysay oo lamaana kala tagaanba maxaa loo sheegayaa taraamaa fariin u dira miya warheedha nimayow naftiina u baqa war ma qaraxaa soo wadaa shurugaa ku raac asbax qarax naftiina uga baqa qaramada mudoobane ciidamo cusub ayay la imaadeen war james wan qaraxii miyuu inta ka baqay ciidan dalbaday war iga tag wasiir goodax ciidan ma dalbane ee iskuulladiiyo dalbaday manhajkayna isku hayaan marka ciyaartan faynaalkeeda aan wada sugna ciddii ku soo baxdo war taas iyaar mee iyaar dhiyaasa ninkiin sheegay dhagansooy yugandha iyo soomaaliya oo ka boodboodu doonaan ciyaartiyo dad badanoo ma midowna iskiirtii doonaan gobolkaas war ma haysaane baarlamaanka naijeeriya kulamadoodii waa ka kala carareen ma saqafka kore ka soo dhacayana ka cabsadeen warraba ku daay maa dhahday war yaaya maxaad wax maalaa yacniyoon meeshaba ool dadka ugu mashquulisaa waryaa xishooda maalin kasta maala yacni asugu imaaydan noo kala wada iga taga qandha wada gafuur dheere